qarax lala eegtay gaari ay saarnaayeen gudoomiyaha golaha horumarinta danaha Mudullood Maxuudiin Xasan Afrax iyo xildhibaan hore Xuseen Caraale ayaa ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxan. Saddex ka mid ahayd ilaalada la socotay gudoomiye Maxuudiin Xasan Afrax ayaa qaraxu dilay, halka dhaawacyada saddex ruux mid ka mid ah loo gudbiyay isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. agaasima ku-xigeenka isbitaalka Ummah Axmed Xasan Maxamed Balaag ayaa ka warbixiyay dhaawacyadii la soo gaarsiiyay isbitaalka ee dhibaatadu ka soo gaartay qaraxaasi. maanta taariikhda 23 saacada markay ahayd adiga 9kii barkii ayaa waxaana loo keenay dhaawac ka kooban markii uu wareystay wuxuu ahaa dhaawac 3 qof iyo meyd 3 qof marka alxamdulillah anigoo la dhaawacii wala tacaalnay xaaladda hadda way degan tahay. laba kamid dhaawac aad u cusla markii refer Digfeer isbitaalka weyn ee Erdogan uu margareynay saddexda meydkana ayaan hadda la diyaarinaa in dadkiisa ay qaataan midna waa noo jiifa xaaladdu way degan alxamdulillah culays ma jiro inta samaanta dhacday bal ka waran gudoomiye Maxuudiin Xasan Afrax runtii anaga gudoomiyaha ma arkin gudoomiyaha soo caafimaad qabo isbitaalka dhex taagan yahay bukaanadana uu caawinayay laakiin qofka dhaawaca ahaa wuxuu ahaa ex xildhibaan hore sidii loo sheegay xildhibaan Caraale asina xaaladiisa aad u fiicnay alxamdulillah laakiin hadda waxa loo refer gareeyay Erdogan hospital. marka xaaladda guud hadda inta dhaawaca ka waran hal wiil dhaawac jira xaaladiisana stable way lugtuna ku jaban yahay dhaawac lugta jira waa marka hadda isbitaalku jiifa insha Allah. Gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan oo halka qaraxu ka dhacay kula hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay bulshada ku nool degmada uu gudoomiyaha ka yahay inay ku dadaalaan ka shaqaynta amniga. dabcan dayactir u baahan yahay laamiga oo ujeeda gidaarkan dirbiga jaban ay hadda ku taakeen oo ujeeda oo hadda waa dareemi kartiin meeshaas oo jaban dabcan way u baahan tahay waa khiyaano ay sameynayaan laakiin khiyaanooyinka hadii la fahmane shacabka degmada degana waxaan leeyahay war indhihiina fura oo hala dul istaago waxaa mas'uuliyiin leeyihiin gudoomiye laameedii leeyihiin cid walba waxay ka saaran tahay mas'uuliyad laamiga iyo dhinaciisa iyo gurigiisa hortiisa wasaqda iyo bacda taalo waxaan leenahay aan lagu gambanin cid walbana mas'uuliyadda xaq qaadato ilaa yar ilaa weyn insha Allah taala wax xisaabtami doona hadii la yiraahdo dad nooc wax ku gaareen waxay wax ku gaareen rag mas'uuliyiin ah iyo staafkoodi marka ilaahay caafiyaan leenahay dhaawaca inta dhimatan Allah u naxariisto insha Allah taala. qaraxan ayaa noqonaya kii labaad uu ka badbaado Maxuudiin Xasan Afrax. Maxamed Ciise Koona, Universal TV, Muqdisho.